gudoomiyaha guud ee shirkadaha Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Siciid Ducaale ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray bariish casri ah oo shirkadda Dahabshiil Group ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Bariishkan bulshadu baahi weyn u qabtay ayaa munaasabada furitaankiisa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, maamulka shirkadda Dahabshiil Group, xildhibaano iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Togdheer waxaana uu yiri marka koowaad ilaahay waa mahad leh, ilaaha bariishka inoo dhammaystiray. intaa kadib waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ama chairmanka Dahabshiil Group Maxamed Siciid Ducaale. alxamdulillaah rabbil caalamiin, ilaahay isagana miisaanka xasanaadka ugu daro. haddii aan ku yara noqdo taariikhda ama sida ay ku bilaabmay bariishkan in la dhiso, markii ummaddu ama gobolka dad ka mida uu daad ku qaaday laagtan aynu marayno, ayaa shirkaddu ama xaajigu gartay in uu bariishkan sameeyo. markaa isagu waxa uu ka fikirayey wadalugeed oo dadka uu qaadayo in uu u sameeyo bariish. markaa bariish wadalugeeda ayaa meesha laga sameeyey. bariishkii labaad oo isagana isla laagtanoo afgooyaa markii la samaynayey ayaa fikirkani uu yimi mid macalgawaadhidu mari karayso in la sameeyo. dabeetana bariishkii labaad oo halkan afgooya laga hirgeliyey ayaa sidanoo kale loo sameeyo mid macalgawaadhidu maraysa laga dhigay. markaas ayaa haddana hindisii in kan hore wadalugeedkaa la burburiyo oo kan labaadee macalgawaadhidii macaldadkii mari karayaan inaynu samayno aynu hirgelinay. ilaahayna waynoo dhammaystiray, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay mudankii mas-uuliyiintii iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay madasha furitaanka bariishkani, waxaanay si ballaadhan ugu mahadnaqeen mulkiilaha shirkadaha Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Siciid Ducaale dhismaha bariishkan iyo sidoo kale dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee uu mar walba ku bixiyo horumarka guud ee dalka. ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala oo mudan in badan aynu mahadnaqno. waxaynu mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil Group iyo Maxamed Siciid. waxaad ka furateen ummadda dhibaato weyn oo haysatay. runtii anigu habeenkii roobkii weynaa uu daay ee xaajigu magaalada uu joogay Maxamed Siciid ee subaxdii bariishkan uu ku dhawaaqay, waxaan ku tukaday Masjidul Huda 2 saacadood iyo 40 mirir bay igu qaadatay inaan gurigaygii gaadho. weliba waxaan maray buundada labaad oo ay isugu yimaadeen 400 oo gaadhi iyo dhowr 400 oo tigood oo ay nagu qaadatay 2 saacadood in la kala hago baabuurtii oo la kala duwo oo ay ka gudbaan. markaa runtii farxad bay u tahay gobolka Togdheer iyo degmada Burco iyo dadweynaha reer Burco bariishkan qiimaha badan ee maanta shirkadda Dahabshiil Group ay dhistay. waxaan leenahay ganacsatada kalena ku dayato. ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro Maxamed Siciid iyo shirkadda Dahabshiil Group iyo inta ka qayb qaadatay. anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada, runtii farxad iyo dareen gaar ah bay maanta arrintan inoo samaynaysaa. bariishkan maanta xadhigga jarkiisa la joogo, annagu ka maamul degme ahaan abaal gaara baannu ganacsade Maxamed Siciid iyo shirkaddiisaba aannu haynaa siduu noo garab qabtay, codsiyada aannu ula tagno iyo waxtarka weyn uu noogu gacan siiyo. aad iyo aad baannu ganacsadaha ugu mahad celinaynaa. shirkadaha kalena intaan leeg inay ku daydaan baannu ka codsanaynaa. runtii aad iyo aad baannu ugu mahad celinaynaa. waxaannu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ganacsiga, awlaadda, ubadka iyo arsaaqadda iyo maalkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu barakeeyo. aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala filjannaannu kuugu ducaynay. dahabshiil ha noolaado, dahabshiil ha noolaado, dahabshiil ha noolaado. maxamed siciid ilaahay ha barakeeyo, ubadkiisa ilaahay ha barakeeyo, xoolihiisa ilaahay ha barakeeyo. reer Burco maanta ducaa lanaga rabaa. maanta maxamed siciid maxaa tidhaahdeen? maxamed siciid maxaa tidhaahdeen? shirkaddiisa maxaa tidhaahdeen? dahabshiil maxaa tidhaahdeen? maanta laga bilaabo bariishka waxaa la yidhaahdaa Dahabshiil bariish baa la yidhahdaa, soo sidaa ma aha? bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. bariishkani bariishkii ugu horreeyey ma aha Dahabshiil Group oo maanta uu ka hirgeliyo degmada Burco ee gobolka Togdheer. waxaan leenahay xaaji ilaahay ku barakeeyo, adiga shirkaddaadaba waannu kaaga mahadnaqaynaa. man lam yushkiri innaasa laa yushkiri illaah. qofkii aan dadka u shukriyin ilaahayna uma shukriyo. waannu kuu mahadnaqaynaa, waannu kuu ducaynaynaa, waannu kuu baarigaynaa. reer Burco soo sidaa ma aha? danta guud ahaan meel walba waxbuu ka qabtay.
lama tirin karo lamana soo koobi karo dahabshiil maxaad tidhaahdeen dahabshiil ha noolaado wabilaahi tawfiiq gabagabadiina waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha guud ee shirkadda dahabshiil group xaaji maxamed siciid ducaale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle halkan isu keenay nabadgelyada iyo nolosha fiican iyo cadaaladda diiranayna haysa ilaahay baa horta mahaddaa leh dadka reer Burco runtii waa dad runtii wanaagsan waa dad aan jecelahay waa magaaladan ku soo koray yaraantaydii markaan dhalinyarada ahaa markii imika aan gababo odayoobay inta Burco joogay halkaa imika aan birashka ka sameynay inta jeer aan lugeeyay dadku iyo biyahaas oo halkaa igu qaadan gaadheen tira male marka horta magaaladu waa magaaladeydii dadka reer Burco aan kala saarina ilaa ka daraf runtii dad wax la kala saaro maaha hadalkaygu imika kaalmadaydu waa ducaa dadka waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay caafimaad ina siiyo in ilaahay raxmaad ina siiyo ilaahay nabad ina siiyo buuxda ilaahay waxaan inta aynu haysano dara dhaadheer baynu wada haysanaa waynu garanaynaa magaaladaynu joogno hal fooq may lahayn hal fooq yaroo halkaasoo nin hindiya lahaa iyo kii ina hala inta kaina halal timirtaan u dooni jirno waxaa loo jiray halkaas timirtu taalnaa xamartii meel kale oo waxay maantana waa arkaysaa waxaase horumar baynu dee gaadhnay inkastoo dee 60 sannadood baynu ka hadlaynaa ka hor weeye markaan ka hadlaynaa ay arrintu caynkaa ahayd waa ilaahay mahadii ilaahay nimcadaasaynu ka baryanaayo inoo sii barakeeyo